ayay qolooyin hadlaayo oo maaragtay xamar maxaan ku dhahdaa ka soo hadlaayo annaga uma jawaabayno laakiin waxaan rabaa inaan u sheego laba qodob oo kaliya qodobka koobaad waxa weeyo ninka horta aad haysataan waa Sheekh Shariif xamar markuu ka soo dagahayay annaga difaac annaga wuxuu ahaa 15 May dhinaca kalena sayidku ahaa dhinaca kalena guriga warsama dhabarkiisa ayuu ahaa oo maaragtay dhinacaan muxuu ahaaye warka waqooyiga la aada marka ma suura gasheen Sheekh Shariif hadduusan hayn xamar in shabaab laga saaro ma suura gasheen ninkaad marka maanta haysataan ood leedihiin inaan ka soo jeediyo mahad celin kooban oo ah guud ahaan inaan u mahad celiyo dadka reer Jubbaland oo runtii maalmihii ay nala joogeen wafuudda shirweynaha halkan lagu qabtay sida wanaagsan oo maaragtay ay isu xilqaa saareen martigelintooda iyo la shaqaynta iyo howlaha gacan siinta hay-adaha amniga aad baan ugu mahad celinayaa gaar ahaan waxaan si gaar ugu mahad celinayaa dadka reer Kismaayo oo runtii muujiyay adayg iyo karti iyo martigelin iyo ayaguna qaybtooda ka qaadanayay martigelinta iyo qaybna ka qaadanayay amniga sugidiisa si ay ciidamada hadba wixii jiro ula socodsiiyaan aad baan ugu mahad celinayaa dadka reer Kismaayo qodobka labaad waxaan rabaa inaan halkan hambalyo iyo dhiirigelin aan uga soo jeediyo ciidamada qalabka sida oo kala duwan sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ciidanka daraawiishta ciidanka nabad sugidda Jubbaland oo hawlihii ugu tirada badnaa gudaha ay ku dhacday ciidanka booliiska oo runtii ayaguna amniga iyo la dhaqanka dadka say u sameynayeen aad u wanaagsanaa waan u mahad celinayaa ayagana runtii haddaysan ayaga ahayna ma qabsoomeen shirka oo maxaan ku dhahdaay ama difaacyada banaanka ha noqdeeno ama muxuu ahaa amniga gudaha ha noqdeene haddaysan jirin isku xirnaan iyo maxaan ku dhahdaay marna ma suura gasheen inuu shirka qabsoomo waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa ciidanka booliska dableyda oo madaxtooyada oo ayaguna lahaa hogaaminta iyo isku xirka mar walba wafuudda maxaan ku dhahdaa markay soo dagahayeen iyo markii maxaan ku dhahdaa ay baxayeen labadaba aad baan ugu mahad celinayaa guud ahaan ciidanka waxaan ku dhiirigelinayaa maxaan ku dhahdaay ciidan waa u adeegaha u shaqeeyaha maxaan ku dhahdaa amniga muxuu ahaa daryeelaha dadka asaga uu ka yimid haddaana saas aan yeelinna dowladnimona ma gaarayno amnigeennana ma saxmaayo barnaamijka ciidanka waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka saddexaad runtii waxaan iyadana halkan aan uga mahad celinayaa oon ammaan uga jeedinayaa waxaa noo yimid rag dhalinyaro ah oo meelo kala duwan ka yimid oo saxaafadda ah sida nimanka xamar ka yimid oo kale kuwii Nairobi ka yimid iyo kuwo kale oo meelo kale ka yimid dhammaan raggaa dhalinyaro ay ahaayeen runtii ayaguna waxaan naga mahad celinayaa akhlaaqda iyo wanaagga iyo maxaan ku dhahdaay isku kalsoonida maxaan ku dhahaa ay muujiyeen iyo shaqooyinkooda sida ay u haysteen ayada oon maaragtay wax dhib ah haba yaraatay aysan jirin ayagoo oo maxaan ku dhahdaay laftooda qaabka ay maxaan ku dhahdaay isu gacan qabanayeen iyo qaabka ay isu siinayeen wararka iyo qaabka xogta ay isula socodsiinayeen runtii waxay ahayd wax aad iyo aad loogu farxo maxaa yeelay saxaafaddu waa qayb ka mid ah aaladda adduunka
marka raggaas oo ah mustaqbalka dalka insha Allah dhalinyarada waan u mahad celinayaa. waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waxaa jiray waftiga waxaa hogaaminayay madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno kale oo runtii muxuu ahaayay ra'iisul wasaareyaal ama xisbiyo kala duwan madax ka ah. runtii waan u mahad celinayaa qaabka iyo systemka iyo ayaga laftooda iyo maxaan ku rahdaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni qaabka ayaga laftooda wufuudoodii iyo qaabkooda maxaan ku rahaa u xakameysnaayeen ayaguna aad baan ugu mahad celinayaa. runtii waxaan arkahayay qolooyin hadhadlaayo oo maaragtay xamar maxaan ku rahdaa kasoo hadhadlaayo. annaga uma jawaabayno laakiin waxaan rabaa inaan u sheego laba qodob oo kaliya. qodobka koobaad waxa weeyo ninka horta aad haysataan waa Sheekh Shariif. Sheekh Shariif xamar markuu ka soo dagahayay annaga difaac annaga wuxuu ahaa 15 May dhinaca kalena sayidku ahaa dhinaca kalena guriga warsama dhabarkiisa ayuu ahaa oo maaragtay dhinacaan muxuu ahaaye warka waqooyiga la aada marka ma suura gasheen Sheekh Shariif hadduusan ahayn xamar in shabaab laga saaro ma suura gasheen. ninkaad marka maanta haysataan ood leedihiin Kismaayo muxuu u tagay horta waa ninkaas qodobka qabsada. qodobka labaad ninka dastuurka ummadda Soomaaliyeed inta iskugu keenay yiri war halkaas idin yaalay ku heshiiya oo ay ku heshiiyeen oo u timaadeen weeye qodobka labaadna qabsada. qodobka saddexaad markii waqtigiisa la gaaray ninkii yiri war doorashadu halkaasay taallaa ha lagu tartamo haddii laga helo waxba kama qabo ninkii helana ahlan wa sahlan yiri oo dalka gudihiisa ku qabtay doorasho oo astaanta ku suntan weeyo oo markii laga helayna hambaliyeeyay isla mar ahaantaasna qodobadaas ayada ah buu ku suntan yahay Shariif Sheekh Axmed. waa nin muwaadin ah waxba ma boobin wax dhib ma keenin maxaan ku rahdayay dadka Soomaaliyeed yiri waqkaas xilka aan idin hayee haddaad i doorataanna welcome haddii aadnan i dooraninna haddii waan u hambaliyeynayaa qofka helo. waxaa ka dhashay maantay dowladda federaalka dowladda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka dhalatay astaantii Sheekh Shariif. waana mid hadda aad ku wada fadhidaan oo wasiirro ku leedihiin oo taliyayaal ku tihiin oo wax walba. waxaan ku soo gabagabeynayaa waxay dhahan dadka reewaamoodka ah ama reegadoodka hebelow soo reebta generaal wax ma caayo waa astaan qaran wax buu saxaa. generaal markaan ku celinayaa generaal wax ma caayo waa astaan qaran wax buu saxaa. waxaan idin leeyahay dadka Soomaaliyeed way heshiin waxa yaroo siyaasadda oo la isku hayana waa laga heshiin laakiin nin walba soo reebo. nin aan hadda geeridiisa maqalin oo fanaaniinteena qaranka ka mid ahaana wuxuu yiri waa lisu soo noqon wixii nool adduunyada markii dowladda Soomaaliyeed burburtay bay ahayd. nin kalena wuxuu yiri oo geeridiisa aanan maqal waxaa la yiri Maxamed Siyaad baa dhintay markaas wuxuu yiri haddaan duqa iska dayn lahayn 3 sano baan noolaan lahaa buu yiri hadda duqina ma hayno dalna ma hayno. war meesha ha nagu celinina meeshaas ha nagu celinina. war dalka maantay waa dowlad federaal ah oo la aqoonsan yahay oo haddana cadow leh. waxa aan ku mashquulna ha noqoto sidaan cadowganaga intaan iskaga celinno aan dalkeena u midayn lahayn. aad iyo aad baad u mahadsantihiin saxaafadda waa idin mahad celinayaa adinka iyo kuwii
maxaan ku dhahdaa runtii oyna suuro gasheen intaasoo ummadda inay isu timaado shir baa xaddiisa intaa la egyahay in uu halkan ka dhaco haddii uusan jirin hogaamiyo ummaddan u khidmeeyo oo u adeega marka waxaan si gaara ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo suuro geliyay runtii in dadka Soomaaliyeed oo baaxadda leh ay isu yimaadaan amnigooda martigelintooda jiifkooda iyo qaab kasta oo ay ku qanacsan yihiin ayaga oo faraxsan ay dib ugu noqdeen deegaanadoodii mudane madaxweyne waa mahadsanta